maxaa la bixinaya waxaan ogaanay in zakaatul fitr waajib tahay cid laga rabo goorka la waajibiyay xigmada loo waajibiyay waxa horta la bixinaya maxay yihiin wax cayiman ma yihiin maxaa la bixinaya markaan leenahay waxa loola jeedaa jinsiga waxa la bixinayo ma darba ma gogol la bixinaya ma raashin la bixinaya ma lacag cadaan la bixinaya mas'aladaasi jawaabteedu waxa weeye zakaatul fitr wax la bixinayo waa raashin waa at'ima waa cunooyin waxa la bixinayo taa horta waa qodob waxaan cunno ahayn zakaatul fitr kaaga ansiximayso waa noo imaan doontaa wax la bixinayo raashin waa waxaana arintaas u daliil ah dhowr axaadiis xadiis ibn umar baa kamid ah hadaan soo aqrin saacan min tamrin aw saacan min sha'ir wa Allah waxa la bixinayo waxay timir iyo sha'ir iyo wixii lamid ah iyo xadiis abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu oo abu sa'id radiyallahu anhu wuxuu sheegay في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بحنجرين زكاة الفطر إني قمد بحنجرين شعير إني يكون بحنجرين في بعض الروايات العلية وحو النبي صلى الله عليه وسلم نأمري إنا بحنه الطعام عنط إنا بحنه فكاسوير وكان طعامنا يومئذ الشعير عنط بينه الشعير بيهيد ومالكاس وقت النبي عليه الصلاة والسلام عنط بينه الشعير بيهيد waxa la bixinay marka waa raashin raashinkaasi raashinku waa noocyo badan yahay ma nooc gaar ah la bixinaya mase raashin waqtiga la joogo iyo zamanka la joogo iyo meesha la joogo dadka joogaay wixii raashin u noqdo zakaatul fitr way kaaga ansaxayaan sida saxiixa waxa wixii raashin zakaatul fitr way kaaga ansaxayaan raashinadu waxa laga taan way kala duwan yihiin kala duwanaanshaha zamanka waxa suurtagala fi ahdi rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wax raashin aha maanta inaan raashin loo aqoon oo raashin ahaan ay dadku u isticmaalaan dhowr qarni ka hor wax cunno ahaan loo isticmaali jiray ayaa waxa suurtagala maanta inaan cunto ahaan loo isticmaalin wax balad cunno ka ah ayaa waxa laga yaabaa balad kale inaan cunto loo ictibaarin wuxuu qofka fiirinaya marka wadanka uu ku nool yahay iyo baladka uu ku nool yahay waxa dadkiisu raashin u ah wax kamid oo bixinaya هذا أنا قرر شيء نذا نستعمله بريس كوا كم بتسمع زكاة الفطر بريس والله بحين كرا راشكو كميديا ضرب والله بحين كرا وقت النبي عليه الصلاة والسلام ضرب والله بحين جرا وحالله بحين كرا وزكاة الفطر أتكو بحين كرتا دقيق باكو بحين كرتا قلي باكو بحين كرتا مسجى باكو بحين كرتا أنت بأطعمة كميديا قمدي باكو بحين كرتا عنوين وحي عناء أو طعام أنا الله استعماله زكاة الفطر ويكون صحيح وسيدة صحيحة علماء قالوا وحي يدادين انت حديث لو شيغي هلو كوبو وسيدة شعيرك iyo timirti waxyaabahaas laakiin xadiid abi sa'id wuxuu markuu leeyahay wa kaana ta'aamuna yawma'idin ash-sha'ir maalinkaas cuntadeenu sha'ir bay ahayd markuu leeyahay muxuu ula jeedaa macnaha wixii waqtigaas cunto ahaa buu nabigu amray in la bixiyo sallallahu alayhi wasallam marka sha'ir kaliya lagu dhaganaamayo wixii cunto ah ayaa waqtigaas la bixinaya waana tarjiix sheekh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah in ta'aamul balad mar walba la bixinayo طعام البلد وحي عنتك أهدرت كاس قدر انتهى لا إيقال الله بحنايا هدي عنا الله بحنايا عنا ذو ميقال الله بحنايا مثلا هدي وحلا كيليو ميقا كيلا الله بحنايا هديه وحلا بيغو ميقا كون بالله بحنايا هرتا وحلا بحنايا قدر كودو وحديث كيمد وصاع فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاع ومقدار وقدر وحلو قدر الصاع و4 أمداد صاع وأفر مد مد كان وحل إلى هذا قفك على عليه سؤيين دحدحان دخلوا قال على علوي قف على عليه بلارين قفنا على يريه قفنا ومتوسط أو دحدحان قف على عليه سؤال حاديه هل مروح وقاضي ولا بضع على عرضه وبوحة أو قا يعني لا بضع عموده وبوحة أو قاضي وحل هذا مد هل مروح وقاضي ومد حطوا أفر جير وعلى عرضه بوحان أو قاضي وحل هذا صاع مركو وأفر مد أفر جير مركو وقاضي وحل هذا صاع مركو النبوي عليه الصلاة والسلام
xilligiisa ama lagu jaangooyay saaca nabiga calayhi salaatu wasalaam waa afartaa mud waaye waxyaabaha la beego markii loo yimaado afartaas mud ee saaca ah meeqa koon bay noqon karaan koombooyinka wax lagu beego markii loo laabto sida saxiixa ah waxa weeye koombada saliid qumbaha lagu keeno ayada laftirkeeda mid yarna way leedahay mid aad u weynna way leedahay mid mutawassit oo dhexdhexaadana way leedahay nooceeda dhexdhexaadka ah 3 jeer oo buuxda ama 3 koombo oo buuxda waa saac hadda ka hor dhowr mar oo la sameeyay beegyo noocaas ah dadka qaar waxay tijaabiyeen in calaa calihi lagu qaado 4 jeer qof isleeyahay calaa calihi waa dhexdhexaad inuu qaado oo ku shubo koombooyinkaas 3 koombo ay noqdeen saacyadii laga keenay duwal carabiya qaar ka mid ah ayagoo iskhilaafeen wadaadada qaar meelaha iska tagaan nin walba koombo keenaa markaas nin walba wuxuu leeyahay koombadan waa saaci nabiga ku jaango'anta mid wuxuu keenayaa koombo uu leeyahay koombadan 4 jeer waa mid kale wuxuu keenay mid uu leeyahay waa tan 3deed waa laakiin midda ugu dhow oo markii calaa calihi qaadidooda loo kaashaday waxa way 3daas koombo inay noqonayaan oo buuxda 3 koombo oo buuxda oo koombada CBC la yiraahdo waa markii la noqoto wax la beegayo miisaanka markii laga hadlayo ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay mas'aladaas waan tahriir macnaha waa turxaan bihi waan tafatiray wuxuu leeyahay burka nooca jayidka ah ee macnaha wanaagsan markii lagu qiyaaso waxay soo baxday uu yiri 2 kiilo iyo 40 gram inuu saawiyo 2 kiilo iyo 40 gram inuu yahay taasoo ku tahriiriyay lajna daa'ima iyo sheekh ibn Baaz rahimahullah ayagu waxay yiraahdeen waxa fiican min baab al-ihtiyaat inuu qofka gaarsiiyo 3 kiilo من باب الاحتياط waxaa loola jeedaa macnaha ziyaada la socdo 3 kiilo ma dhama saaca sida qaalibka ah laakiin intii adiga wax ku soo raaci lahaayeen ziyaadaha ka tagtay adoo macnaha is ilaalinaya ziyaada iska raaciyo 3 kiilo inaad gaarsiiso ayaa afdal ah oo fiican bixiya qofkii marka 2 kiilo 40 gram bixiyo iyo hadduu 3 kiilo ka dhigo min baab al-ihtiyaat waa sida fiican ee ihtiyaatkaas inuu ku daro si uu uga baxo واجبكي صارنا wax kamid inay asiga ku noqdaan hadii taqdiirka inuu Usaymin uu ku socdana way u banaanta hadii marka raashin la bixinayo raashinka la bixinayo qadarkiisana uu saaciya saacaasi ama kiilaha loo rogo ama maarata beeg ha noqdeen ma banaanta in qiimo la bixiyo waxa suurtagal ah haddii cuquusheena aan u noqono in caqliga qofka uu keeno in lacagta ay ka fiican tahay in raashin la bixiyo مثلا qofka inaad siiso 3 kiilo bariisa iyo inaad $100 u soo dirto la shaka isku qiimo ma aha oo mubasharatan labada midkee ku siyaada tiraahdo si degdeg wuxuu leeyahay war 100 ka isii ila 100 waxa waaye waa lacag aad u fara badan laakiin sharcigu ma ogol yahay in lagu bixiyo jawaabtu waxa weeye maya ma banaana waxaan raashin ahayn zakaatul fitr lagu bixiyo ibn al-Mundhir rahimahullah wuxuu sheegay khilaaf daciifa oo bacd ulama ay dhahaan way banaanta qolo kalena waxay dhahaan buu yiri haday daruuradu keento way banaanta daruurada dantu haday keento lacag waa la bixi karaa markaas wuxuu ku soo gabagabeeyay لا يجوز ذلك بحال حتى ضرورة ما بنانه مر أي بنانته ما بجست بيرين إنه بحيه العقد الإمام النووي وحليه في المجموع قال الشافعي والأصحاب شافعي هي أصحابه وحيداده الأصحاب عولة جلاء الشافعية وأصحاب الشافعي لا يجزي إخراج القيمة وبه قال الجمهور
شافعي أصحابته waxay yiraahdeen zakaatul fidrigu ka gudi mayso qiimo bixinteeda ma gudayso qiimo in la bixiyo qowlkaasna jumhuurta qabtay wabihi qaala jumhuur ulama qowlkaas ku tagayaan marka ahlul cilmiga badankood waxay qabaan inaan lacag lagu bixin karin oo ay waajib tahay in raashin lagu bixiyo halka waxaan baraarujinayaa dada mesela dibadda jira lacag ay soo dirsadaan dad wadanka joogay lacagta u soo dirayaan waxay leeyihiin lacagtan waa zakaatul fidri ay zakaatul fidri nooga bixi macnaheedu ma aha lacag ahaan u bixi macnaheedu waxa waaye suuqa tagoo raashin soo gad kadibna raashinka ku bixi adigoo ayaga wakiilka ah taasaan kugu bannaan laakiin inaad tiraahdo lacag ay soo direen masaakiintii aan lacag siinaya zakaatul fidri ayaga uga bixi mayso zakaatul fidri uga bixi mayso weli waajibka waa saaran yahay lacagtaas la bixiyana ma ka gudayso zakaatul fidri lidaalika haddii lagu wakiisho arrin noocaasa oo lacaga lagu soo diro waa inaad raashin ku gado masaakiintan aad raashinka siiso ood wakiil aduga noqoto soo iibinta raashinka iyo siinta dadkii mudnaa aad siinayso waa inaad ayaga wakiil uga tahay الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحو يري كما في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدرهم قفنا ما بنانا إنه زكاة الفطر بحيو من الدرهم أولعك بحيو يعني درهم يواد العقا هو الاستعمار زكاة الفطر إنه قفك بحيو حلال معها والملابس يقدر إنه بحيو حلال معها أو الفروش أما جوجل أو بحيو قفنا ما بنانا إنه زكاة الفطر كله لعق أما در أما جوجل إنه كله بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل وحا واجب زكاة الفطر بحنتها إن لقب بحيو وحين الله فرض يلي رسولك سعرب إنه فرض يلي وراشك لأنه راشك شيء عليه الصلاة والسلام تاسا واجب ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس واحتحق لنا ملها wanaagsiga ay dadka qaar wanaagsadeen arintaas dadka qaar wanaagsaday ama u arka wax fiican inay tahay in lacag la bixiyo warkooda wax tixgelina ma laha ha qaadanin kuwa warkooda sababtu waa maxay warkooda uusan tixgelin walahay wuxuu yiri lianna shar'a laysa taabi'an lil aara sharcigu ma ahan mid aaraada raacaya sharcigu ma ahan mid aaraada iyo aragtiyada dadka raacaya ma aha bal min ladun hakimin khabiir بل شرعيا وحو كيمي الله حكيمة وخبيرة أكتسو كيمي سبحانه وتعالى مركا نوال بوحي لو ناكسن هذا ما هو إنه شرعي راعي شرعي أسيقى واجب إلا الراعو ما هو شرعي إنه أسيقى ذاتك الرأي وذا الراعي على كل حال علماء الجمهور تضو وحي قبان إن يسن بنانين إن العقل هو بحي زكاة الفدري أما در له بحي أما قول الله له بحي على كل حال وحان راشين أهين زكاة الفدري كاقا أنسيها ميسو